degmada ay shacab waxay ka mid tahay 7 degmo ee gobolka City waxayna magaalada Dirdhabe u jirtaa 173 kilomitir waxayna kaga talaa dhinaca waqooyi bari sidoo kale waxay xarunta gobolka City ee magaalada Shineele u jirtaa masaafo dhan 159 kilomitir halka caasimada deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jiga u jirto masaafo dhan 348 kilomitir qaab dhismeedka dhulku degmadu ku fadhido wuxuu jooga badda ka sareeyaa 766 sidoo kale waxay magaalada ay shacab oo ku taala goob istiraatiijiya waxay marsada Djibouti u jirtaa 209 kilomitir oo marka laga gooshayo gaadiidka dhulka halka marka lagu gooshayo dhabaha tareenka ay shacab ilaa Djibouti isku jiraan 140 kilomitir waxayna magaaladu ka mid tahay magaalooyinka qadiimiga ee deegaanka bulshada ku dhaqan magaalada ay shacab guud ahaanba degmada noloshooda waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyadoo waqti xaadirkan ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya dadaal xooggan ugu jirto sidii bulshada looga dhigi lahaa xoolo dhaqato beerley waxayna magaalada ay shacab guud ahaanba degmaduba si habsami looga faa'iideystaan adeegyada horumarinta aasaasiga caafimaadka waxbarashada biyaha iyo waliba beeraha oo ah mid waqti xaadirkan ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya bulshada u jihaysay inay noqdaan xoolo dhaqato beerley isla markaasna ay u gaaraan isku filnaansho dhinaca damaanadda cunnada dhinaca kale waxay magaalada ay shacab guud ahaanba degmaduba si buuxda uga faa'iideystaan adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta adeega mobilka laydhka waxaana dhaxmara jidka waqti xaadirkan ay gacanta ku hayso shirkadda dhismaha mashaariicaha mugalay laga leeyahay dalkaas Shiinaha ee CGCOC waana mashruuca laamiga ah ee Dirdhabe ilaa iyo Danwale oo masaafo dhan 222 kilomitir oo dhaxmaraya 3 degmo oo ka tirsan gobolka City degmada Shineele degmada Dambal iyo waliba degmada ay shacab oo marayo xarunta degmada ay shacab oo bartanka u dhaxmarayo kaabayaasha dhaqaalaha degmada sidoo kale waxa kamid ah mashruuca labaad ee GTB1kii ee dhabaha tareenka cusub oo maraya duleedka magaalada Aysha waxaana magaalada 2 kilomitir u jira train station ama halka tareenku ku kala goosho isku weydaarsado rakaabkiisa iyadoo guud ahaan gobolka City uu ka marayo 344 kilomitir mashruuca dhabaha tareenka ee Maayso ilaa iyo Danwale kaasoo isku xidhaya labada dal ee dhaqaalaha mid kale Ethiopia iyo Djibouti maadaama labada dal uu ka dhaxeeyo xiriir walaaltinimo siyaasadeed mid bulsho dhaqaale iyo waliba arrimaha bulshada waxayna mashaariicahani ka mid yihiin kuwa dhumucda leh ee dawladda federaalka Itoobiya ay ka wado deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City kuwaas oo kaalin lixaad ka qaadanaya kobaca iyo isbedelka dhaqaalaha wajigiisa labaad ee dalku ugu gol xaadanaya inuu ka mid noqdo wadamada hayntooda dhaqaale meel dhaxaad ka tahay barnaamijkeena horumarinta magaalooyinka daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa adeeg bixinta wakaalada dakhliga ee degmadaasi ay shacab iyo waliba sida ay bulshadu ugu dhiiradeen wakaalada dakhliga ee degmada ay shacab waxay ka mid tahay wakaaladaha dakhliga ee deegaanka isla markaasna dib u habeynta lagu sameeyay kadibna la helay dakhli xoogan oo qayb ka qaata kobaca dhaqaalaha ee deegaanka iyo dalka waxaana u koorgalay adeeg bixinta wakaalada dakhliga iyo waliba geedi socodada kala duwan shaqooyinka ugu muhiimsan ay qabtaan jiritaanka dawladnimada waxa hormuud u ah cashuurta dakhliga oo la bixiyo maadaama dakhligu uu yahay midka bulshada loogu qabto adeegyada horumarinta bulshada adeega caafimaadka waxbarashada biyaha beeraha iyo waliba adeegyada kale kaabayaasha dhaqaale
wakaalada dakhliga ee degmada Aysha ayaa sarooyinka ugu dambeeyay waxay sameysay dadaal ballaaran oo kor ugu qaadayso ilaha dhaqaale iyo waliba ilaha dakhli ee degmada kuwaas oo lagu fulinayo mashaariicaha kala duwan ee degmada oo ay ka mid yihiin sanadda 2008 biyo xireenka weyn ee magaaladaasi Aysha. سيادة وماريها وكالة الدخلية دقمة عيسى الشعب وهنا كور رميا قابل اسميت كلا دوان وكالة يولي بجيد السعودية كلا دوان يشقوين كي قبطان. بسم الله الرحمن الرحيم. حفيز قابل اسميت كيسو لمان شغالها عدودة واحيسة كلا جدسان واحد حدينتا واحد شرعية كو وعي جرينتا لما وحيها يسرى كلا يجوا كو كلا دراسات كيو لمان وي نو دنيهين عشرورياش واسديد تريد جودة شغاله هو شني لاطن دقمة تريد شغاله هو سدا تاسوا عن سنة كان هول فلونتي هي مشاريع ذيبا أنا وحكرنا لو صدري شيرين أنا وعن لا صوب حناي مدة صوب مشاريع هذا الدعم كا لما يستري العقد يدخل يلا صوب حناي لو دولة دتكو كله دولة عافمات كا لما بس سنة كان إن مشاريع ذا يهول فلنت بين الله صباحنا أنه وصلنا كينو ولي جبين ونمرنا طبعا بلاد حدو لا يرادو وحيابها يرى أنت الله هدينا ذلك أنه حكومة دو جادية قرشها تشيبي توجا إنا نكمل دارينه ذلك الداخلي تاسو ولي بنا لسمي أفرع تسع كمان دبوست بيشرا وكالة دي سامي وريبورتيا وكالة دولة ديجان كدخل يو دقمدو كمان دبوست نور حياة جرافر لا تكي سح ريبورتيا عن كوب حنو وحصوا حراضية الداخلية تاسو يو بيلشينا عن كوجد بينه قاب شقيت كمرك النظام قاد بسوح ليه كوري هوسبا يضو استدلوا سعد عدان وعدالة الله راح يصير تمايو هدول ليه هذا قرشين تسا هدينا وان كاميرا دالينا عبد العزيز أحمد وقدوميها دقمة عيشة وحنا كورميا إسبدل كأودحية أنتي لقدقي وكالة إسكيدو تاجن إيوليبا ديبها بنتي لقسمية وكالة الدخلية دين عاديك بحنتا إيوليبا عدود شقالها إيضو حفيزك معمول كي دقمة قعن السيو. هذا أسباب بدقنا جذهان سنة ذي هراء الصعدة في محن كنا GTP وانكي وحي كوري أما توجن هذا اللي قاليو فرقiga u dhaxeeya maxaan ku dhahaa sanadadii hore iyo sanadkan aad bay u kala maxaan ku dhahay u kala sareysaa hadii la fiiriyo xagga adeeg bixinta wakaalada iyo guud ahaan xuduudda shaqaaliye xoojinta wakaalad maxaan ku dhahaa markii ay noqoto wakaalad madax bannaan heer deegaan ilaa iyo heer degmo waxay noqotay mid tayo leh isla markaana soo saarta دخلية لغة بانا أبورتنا إلى عصوبة محن كده دخلي تاسو مركا إذا وحكت ترتي حواليه هرمرك محن كده هرمرك مكان لنا هاي وحفروة أو كو فروة والدخلية إذا عن دخل الليل هرمرك محن كده ما إيمانا يو وحبرش الليل إنن دوكسي ولا ديسينن caafimaad baan maxaan ku dhahaa sidii la rabay aan adeeg u bixinaynin marka guud ahaan adeegyada haday nabadgelyo tahay iyo hadii maxaan ku dhahaa horumar ay tahayba waxa maxaan ku dhahaa ay ku xiran tahay waa dakhli jirina horumar laba keenay guud ahaan marka aad baan uga mahad celinaya maxaan ku dhahaa wakaalada heer deegaan sida maxaan ku dhahaa cuud shaqaalaha iyo qaabka maxaan ku dhahaa dabagalka iyo xagga documentationka iyo kor u qaadida hawlahan dakhliga maxaan ku dhahay ka saaciday wakaalada heer degmo sida madaxa bannaan anagoo run ahaantii dhigaaf ama taageero fiican ma siinaa iyadoo maxaan ku dhahaa aan ku sameynay inaan ballaarino ilaha anaga dakhli isla markaana maxaan ku dhahaa
aan qorshayaashii noo qorshaysnaa sanadkan 2008ka inaan maxaan ku dhahay ay noo qabsoomaan aan isku dayno iyadoo dhammaan kaabnega degmada iyo maamulku ay ka qayb qaadanayaan marka guud ahaan waqti xaadirkan isbeddel fiican baa ka jira wakaalada dakhliga run ahaantii kulley waa dareemi kartaa maxaan ku dhahaa isbeddelka ku yimid wakaaladdu xilliga la asaasay iyo waqti xaadirkan waxaa jira xilliyo kala duwan oo maxaan ku dhahay soo martay wakaaladdu mar maaliyadda iyo dakhligu ay isku jiri jireen baa jirta oo xafiiska maxaan ku dhahaa dakhliga iyo kharash bixinta lalahay run ahaantii waxyaabaha looga bogsaday waxaa weeye in la kala saaro xafiisku istaraajir fiican oo maxaan ku dhahay in la kala saaro wakaaladana wakaalad madax bannaan ay noqoto xafiiska maaliyaddana uu noqdo maxaan ku dhaha kii miisaaniyadda iyo kharashka maamulayay marka taas inta la sameeyey mid wanaagsan oo maxaan ku dhahaa uu kor u kaco maxaan ku dhahaa dakhligu soo saaristiisa iyo maxaan ku dhahaa fahankiisaba ayay noqotay halkaana in laga sii xoojiyo oo harjeena mustaqbalka yaasiin maxamed rayaale oo garwadeenka geedi socodka wacyigelinta iyo daraasaadka wuxuuna ka warramayaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee geedi socodkan uu garwadeenka ka yahay uu qabto iyo waxyaabaha u qabsoomay sanada 2008 tobankii bilood ee lasoo dhaafay waaxda wacyigelinta iyo daraasaadka hawlo badan baan qabanaa hawlaha aan qabanno waxaa ka mid ah bulshada inaan iskugu yeedhno sanadkiiba dhowr jeer oon kulan ballaaran u qabanno gaar ahaan ganacsatada oo macaashkii sanadkii dakhli fiican oo naga soo galo qaabkaan wacyigelina bulshada waxa weeye bulsho faham buuxa ka haysata dakhliga faa'iidada uu leeyahay iyo bulsho faham buuxa ka haysanin faa'iidada dakhliga uu leeyahay ayaa jirta marka bulshada fahamka buuxaan ka haysanin intii aan iskugu yeedhno hal meel yaan fahansiinaa faa'iidada uu dakhligu leeyahay waxa la inaga qaado waa wax adigii laga qaadayo adigii lagu soo celinayo marka maadaama adigii laga qaadayo adigii lagu soo celinayo waa wax faa'iido adigii ku faa'iide dakhliga bixi qof loo soo celinayo bulshada waxna loogu qabanayo maadaama dakhliga yahay maaha wax maxaa la yiraahdaa wax u dhimay oo wax u qabanay marka maadaama wax u qabanay yahay dadkii way bixinayaan dakhliga wacyigelino oo faham buuxa ka siinaa ama fahansiina faa'iidada uu dakhligu leeyahay ka bacdi dadkii ay ka qaataan faham buuxa dakhligu waxa uu yahay iyo waxa uu qabanayo marka wacyigelino ka bacdina dad bixiyay noqdaan way bixiyaan oo fahansan dakhliga faa'iidada uu leeyahay wacyigelinta abaabulka bulshada kale wacyigelintu qabaliyada ay u baxaan goobo fagaara oo wacyigelinta laga sidii nidaamka dakhliga waxa lagu qabanayo iyo in mashaariicdan la wado in maaragtay iyaga lacagtan laga doonayo inay tahay midii lagu fulinayo horumarka oo iyagu ay leeyihiin kor loo dirin iyaga ay dib ugu noqonayso waxyaabay ku wacyigeliyaan baa ka mid ah geedi socodada kale ee wakaaladdu leedahay waxaa ka mid ah ay ku taagan tahay oo ah tiirka oo lafdhabar u ah geedi socodka sharciyada waxayna ka mid tahay cid kasti ama laan kasti oo ku xadgudubta bixinta cashuurta dakhliga ama luusanta inay tallaabada sharciga ka qaado horta markaan ka hadlo gaar ahaan qaybta sharciyada waxaa jiro markaan shacabka u sheegayno ama lala qabisiinayo qaybta sharciyada waxaa jirto qayb wacyigelin ah oo xafiiska uu leeyahay qaybta wacyigelinta ayaa qayb ballaaran ka qaadata waxaa jirto marar badan oo goobo fagaara la isugu keeno shacabka la isku soo ururiyo wacyigelin fiican la siiyo kadib markay ka cilmi qaataan wacyigelinta kadib ayaa saboorta anagoo siinayna qaybta wacyigelinta qaybaha sharciyada saasaan ku wacyigelinaa kadib ayaa sharcigiga laga maraa marka hore haddii cabashooyin ay ka yimaadaan dhanka bulshada waxaan sameynaa waan soo dhaweynaa marka hore sharcigayaan u eegnaa kadib annaga oo ka dhaadhicinayna iyadoon la qasbayn iyagoo laga dhaadhicinayo si fiican loo fahansiinayo ayaa waxaan sameynaa sharcigii baa marka hore tusnaa kadib ayagoo ku ganacsan xataa marar waxaa jirto haddii ay dad aan iska la sii haysan oo aada sii murmaabi jira kadib annagoo la adeegsanayno qaybahan sharciyada ee degmada saasaan anagu anugu amal marinaa kadib saasaa loo tusaa inuu sharci yahay dhinaca sharciyadoo kale xafiiska waxaa jira xeeraarinta jirta
xafiiska sharciyadu waa waaxda xeeraarinta waxa la leeyahay wixii de nidaam ee sharci ah ee shuruuca ama dadka bixin waayay dakhliga waqtigooda in marka hore intaan la xirin koor in ay qaabka nidaamka sharciga lagu leeyahay in la baro hadda waxa jirta shirkadaha kale waaxda sharciyadan xusaraan waaxda sharciyada kale kuwa hadda lacag loo diiday jirtay waaxda sharciyadan xusaaray iyagoo nidaamka la kaashanaya wakaaladena xafiiska sharciyada xafiiska jiray oo xiriir la sameynaya oo ka kaashanaya wixii shuruuca bayaguna iyo talaabadooda iyo nidaamka u maraan sanadkii horena si fiican bay u bixiyeen ganacsatadu annagoo wacyigelin marka hore intaan la bilaabin mactul macaashka intaan la bilaabin annagoo shirweyne lagaga doodayo sidii daraasaadkii lasoo sameeyey baa iyaga dib loogu soo akhriyaya annagoo ka kaashanayna maamulka qabaleega iyo maamulka degmada iyo xubnihii soo qiimeeyay ay fadhiyaan baa hoolka fagaaraha lagaga doodaya sidaasaa markaa lagu qancinayaa qofkii maaragtay wixii lagu lahaaya wixii aan lagu lahayn markaas waa cod baa lagu ansixinaya sidaasaa qof kastaba marka warqadii roboona ah oo uu ku yimaado xafiiskii yaa loo geynaya saasuu ku bixiyaan waaxda xadaynta oo kale waxay xadaysaa waxaa laale wixii nidaam ee la qaadayo mactul macaashka oo kale marka la qaadayo english ku daro mactul macaashka intaan la qaadin horta waxa ka horeysa waaxda wacyigelinta waxa la yidhaahdo waaxdaas inay wacyigelin samayso kadib haddana waaxdii xadayntii ay tagaan waaxdii xadayntii ay tagaan meheradii la qiimeeyo daily income-ka soo galaya maalintii lagu dhufto waxa ay macaashka ay helayso halkaasay wax kastaba ay markaa shaqadeedii ay ka qabsataa طبعا qaabka aan u geyno cashuurta waxa weeye maadaama uu degmada uu ka jiro bigi standard oo 24 hours shaqeeya bulshadu wixii lacag ay anaga noo kanayso ama dakhli ahaan ay ku soo xiranayaan bangiga ay ku soo xirayaan ka bacdi anagu rasiidka ay bangiga ay nooga keenan ayaan ka qabilnaa ka bacdi ayaan u jarnaa waraqada foojarka buugan waa buuga aan laga qabto arfiga qaybta dadka lacagaha bangiga ku soo shubay kabacdi nidaamka ayaan ugu jarnaa saddex qaybood ka koobay buugu mid cadaana iyo mid casaana iyo mid nooc kala marka qaybta cadaanka waxaan siinaa qofkii aan qaybta cadaanka waxaan u geynaa qofkii shakhsiyaadkii dakhliga xiriibay rasiid ahaan u siinaa labada kalena waa maaliyadda cidda yadlaha aan ka qabilno ayaan siinaa waraqada cadaanka taas iyo takana maaliyadda tusaale ahaan haddii aan u tukano qof careysan ama kasoo horjeeda dakhliga inuu bixiyo laba dagaanana waan u dejinaa waxaan ka dhaadhicinaa inuu bixiyo dakhliga maadaama uu yahay horumarka deegaanka uu yahay beri mishaarkii macalinkiisa ilmihiisa u dhigayay ama dawadiisii biyihii horumarka horiya waan ka dhaadhicinaa kabacdi markaan ka dhaadhicino in faahsiino ayaan ka qaadnaa si degan jeekan waxa weeye lacagaha nooga soo xiro sida shirkadaha shiinaha oo kale marka waxay noo keenaan jeeg ka bacdi ayaan rangu rasiidka ku jarnaa lacagahoogana bangiga ayaan ku shubnaa cabdicasiis axmed gudoomiyaha degmada Ayshaca wuxuu ka waramayaa inay degmadu ka mid tahay degmooyinka dakhliga la soo baxaan ay ku fuliyaan mashaariicaha horumarneed ee ka jawaabaya baahida bulshada dakhliga sanadkan 2008 ay degmadu soo saartay mashaariicda ugu weyn ee lagu fuliyo waxaa ka mid ah biyo xireenka degmada Ayshaca kaas oo ay bulshadu uga faa'iideysanayso dhinacyada kala duwan ee waraabka beeraha iyo waliba xoolahaba haday tahay waxbarasho kuraas manhaj daawo dam aan qodayno guud ahaan waxaan ka soo saaraynaa waa dakhliga waxaan noo dhimanaa inaan maxaan ku dhamaystiri doonaan aaminsanahay guud ahaan marka maxaan ku wakaaladu runtii isbedel fiican baa ka muuqda inaan sii loo jibaarnaa oo isku sii dayeynaa
ka hadlayaa dhowr arrimo dhowr qodob arrinta koobaad waxa weeyaan waa arrintan aan dul taaganahay hadda waa dhaamka weeyaan dhaamka Soomaalida Itoobiya sida fiican ee hawshan ay noogu qabsoontay dhaamkana kulley waxa ka faa'iideysanaya bulshada ku nool qablahan laasmacan markaas kulley aad iyo aad baan uga faa'iideysanaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha iminka maqarnaysa kow ka ah hadda kor meeshan waxay ahayd meeshan waxaa la yidhaha luuqan uranboba la yidhaha wax biyaa waxa dhaafaya meena biyihiisan u fadhiisanayo baaxad leh hadda kor ma jirin laakiin maanta meeshan waa la isugu yimaadaa subax kasta iyo aroor kasta waa lagu yimaadaa dadku waa aragtaa meel kasta beer baa ka wada oodan meel kasta beer baa ka qodan marka dad baa in baa ka cabta in baa maqarnaysaa beerahana ka wabarsatiyaar waa biyahaasna waa biyo baaxad leh beeraha laftigooga hadda kor beeraba meeshan ma lahayn horta ta oraysa biyo ma lahayn oo biyo maqarnaysaa way dhaafiyeen luuxan warbo baa loolan jiray maanta waa la arki karaa biyaha baaxad inta leegle ee tayada leh ayaa maqarnaysaa joogsaday hadda kor may fahansanin dhaamka laftigiisa dad maqarnaysaa aragti kala ka haystay baa jirto fahansanin laakiin maanta aad bay u wanaagsan tahay biyo fiican baa ku jira meeshan markaan xaadana biyahan markay dawladda ee dhaamka ay ka qoday isla markiiba dadku bulshadu waxay maqarnaysaa ku dadaaleen amba maqarnaysaa inay kaga faa'iideystaan ay diyaar u noqdeen in ay beera ay ka samaystaan hadda kor meeshan cid amba beeraha ka beerta tirada amba iminaysay ma jirin marka qorshaha koobaad ee maqarnaysaa bulshadu ay maqarnaysaa kolkiiba faham buuxa ay ka qaateen in ay maxaadana meelaha ugu dhudhow ay maxaadana beera ay ka samaystaan dadkuna maxaadana group isku xiran yihiin maxaadana dad shakhsiyaala jira dad maxaadana group jira beeraha maqarnaysaa ayaa maqarnaysaa durbaba laga qabsaday markaas waxa ku weeyaan kulley waa mahadnaq aad baan ugu mahadnaqaynaa kulley hadda kor maxaadana wacyigelin ballaaran ayaan u sameynay hadda kor maxaadana meeshan may fahansaneen inay maxaadana amba beeraha ka qotaan amba maqarnaysaa ay dhaamkan ay ka faa'iideystaan laakiin markii biyihii ay joogsadeen meesha ay dawladda ay maqarnaysaa ay qoday isla markiiba dadkii waxaan ka wacyigelinay inay dhaamka ay kaga faa'iideystaan ay dadku xoolo dhaqatay beeraley loo bedelo hadda laakiin maxaadana dad badan ayaa maqarnaysaa beeraha ka qabsaday beeraha maxaadana durbaba ay dadku ay kaga faa'iideysteen dad badan baa xataa markii la dhisayay shaqadan ay ka socotay fursado shaqa ka helay aad iyo aad baan maqarnaysaa muuse xasan ducaale wuxuu aaminsan yahay in dakhliga oo la bixiyo ay tahay naftaada ka qaad naftaadana u qaad intaa waxaa kaloo u dheereed in mashaariicda horumarneed caafimaadka waxbarashada biyaha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha haddii bulshadu kaalinteeda ay ka qaadan oysan cashuurta dakhliga bixin in la gaari karin yoolasha la higsanayo hadda kordee wixii lagu qabto niman fahansanin wuu beeyaa wuuna marooriyaa way la qaldantahay la orordaadi hadda kolkii aan aragnay inaan wax lagu qabanayana kolkii dhaam la qoday ambulance dhakhtar caafimaadna noo sameeyey ambo maxaan ku idhaahay waxbarasho ciyaalku uu wax ku barto oo aqalaana noo sameeyey dee annagu kolka hore dawladda waxa iyadu ay ku buuxisay ku beerisaba dakhliga kolka hore faybu nagala fadhi annakasta imika kolkaan aragnay waxqabadkii dawladdas waxaan aragnay dee inaad tii waxna loogu qabanayay tayada naftaada ka qaado naftaada uun si ay dee tahay taladii haldeed halkaaba annaka nagala dhaqaaqo waxqabadka waxaana naga ururinayna waxnana noogu qabanaya waxnana nagu gaarsiinaya un baanu aragnay waxbarashada ciyaalka iyaga iyo faa'iidada iyada iyo waxaan dakhli kolka hore aan lahayna ma imika annaku waa horumar baanu aragnayba unala soo fududaado imika hadda la eego waan taabaxsanayba xagga dhaamka haddaan uga baxo biyuhu dee awal halkani waxba ma lahayn imikana waa kaa rag ku tabcee wax dhigay ee la qabtay si fiican oo maaquul ahoo maqtala dee loo xidhay galde imika waa ka habac dhamanayeenna haraacinay dadkaad ka faa'iidaysatila imika beeraha ka xidhaye wax ka samaynayaan ku jira imikana sidaa leeyahay waan ku tala jiraa inaan waxna ka qabsano waxqabadka kow iyuu de annaka dhaamku maanta noo yahay dee xoolo dhaqatadu way ku soo aroortaa annaku waan maxaan ku idhahay beerahaan ka samaysanaynaa imika hareerihiisi iyo faa'iidada ku jirta awal dhulkani ma aan jirayn sabab unbu ahaa meel iska bannaanoy biyu iska maraan faa'iiduu noo yahay annaga maanta tabtaa imika uu yahayna waa dee maanta uu noogu faa'iido badan yahay dakhliga bulshada waxa dee nimay ka daahan tahay weeyaan nimay dan u ahayn ma jirto bulshaday dan u tahay dakhligu waa wax faa'iido ahoo dee wax lagu qabanayo kanoo dee kale waa ka lagu qabtay meeshan lagu dhisay
waa kaa lagu dhameeyey meesha lagu adkeeyey waxaa dee lagu qabtay wax wixii buu ahaa dee niman waxba dee laga qaadin waxba dee inta badan dawladdu qarqar hadday qabato qarqar kale way ku xislaan lahayn wixii ay naga gurtay in wax noogu qabatayna maanta faa'iido noo yahay yaa waan ku mahadinaa anaga horta kolka inaan fahansiinaan rabnaa taa inaan fahansiino imika bulshadu way la qabsatay beeraha inta ay qabsatay malyuumaad bay qabsatay meesha hareeraheega imika dadka qabsaday 190 qof buu noqday group buu qotaa dadka ay waa dad la qabsaday wax qabadka dhaamka iyo wax la soo baxsiikeyga haddana maxaan ku ilaahay dakhliinimadana sida uu la qabsaday imika waa si fiican inaa wax loogu qabto ay dawladdu gacan ku siisayna waa arkaya hadday fahamsaneen inaan annaka imika waxay naga aqal xun inaan fahansiino odaydii duqaytaan howaana kama buuyacanayno kamana baydhayno inaan maxaa halkaa iyo saruuqaad anu ku wadnaan doonayn cabdi miicaad wuxuu ka mid yahay duqeyda degmadaasi ay shaca wuxuuna ka warramayaa intii bulshadu fahan ka haysan bixinta cashuurta dakhliga inay adkeyd balse markii fahan dheeriya laga siiyey lagana jahli tiray inuu dakhligu yahay midda lagu fuliyo mashaariicaha horumarneed uu ka mid yahay biyo xidheenkan duleedka magaalada ay shaca laga fuliyey ee uu dul taagan yahay dakhliga markana naga qaadayay een ka jaahilka ahayn waxaan u haysanay wax naga qaadanayo meel kale la geynayo waxqabadada dhaankani ka mid yahay kolkaan imika aragnay ilaa 3,20,000 jooga kolkaan aragnay waxaan u aragnay naftaada ka qaado naftaada u qaad inay ahayd baan u aragnay aragtayadu sida ay tahay waxa weeyaan cidii aan fahansanayn waan fahansiinaynaa cidii fahantay way fahantay kolkaan meelo dheer na nooga keenay ay abaar xun dhacday ee dhulku uu gaga noqday ee meelo dheer caws yar iyo waxna nooga keenay ee kuwa noo adeegaya dawladdeedii nooga keeneen wax badan oo naga dhimin lahaa baan noo nool imika wax badan oo naga dhimin lahaa baan noo nool waxaanu aragnay kolkaa hadday cashuur tahay anigu neefkaan iibsanayo marka mareeyaha hore cashuurta laygu hadal qaado waxaan odhan jiray oo dawladdu miyayna boobaysa xaggee u socotaa xaggee ka socotaa baan odhan jiray markaan arkay wixii oo waxna noogu soo daray oo anaga waxna macaamiisha dadka shacabka maxaan ku dhahay waxay ka haysteen dakhli bixiya marka la dhaho shacabku fahanna kama haysanin already marka hore isla markaana dakhligu in shakhsi uu maxaan ku dhahay qaadanayo ma imarinayeen laakiin dadku maalin kasi dambaysa maxaan ku dhahay soo bislaanayaan dakhligu mid iyaga loogu adeegayo isla markaana maxaan ku dhahaa wax ka taraya horumarkooda caafimaadkoodii waxbarashadoodii biyahoodii loogu qodayo fagarayaal kadib iyo maxaan ku dhahaa inaan ka dhaadhicino in dakhligan uu yahay waxa uu adeegaya ee kharash ahaan ayaga loogu adeegayo inuu yahay bay aamineen marka waxay maxaan ku dhahaa taa sababtay in ganacsatada ay maxaan ku dhahaa tiin nambar wada qaataan shacabka maxaan ku dhahaa isagana xoolo dhaqatada ah ama beeraleydana ay iskood maxaan ku dhahaa iyagu u noqdaan kuwo canshuurta keena goobtii ama wakaalad dakhliga ku soo xareeyay isla markaana maad naga qaadaan dhaha oo maxaan ku dhahaa iyagu codsada marka heer biseel fiican bay iyaguna maxaan ku dhahay ay faham fiican bay ka haystaan isla markaa wakaaladuna si fiican bay macaamiisha usoo dhaweysaa oo maxaan ku dhahay ay u qaabishaa marka guud ahaan heer fiican bay maraysaa maanta wada shaqaynta shacabka iyo isku xidhnaanshaha wakaaladda iyo adeeg bixinteedu mid aada u fiican bay maraysaa waan dhihi karnaa waqti dadka shacabka maxaan ku dhahay waxay ka haysteen dakhli bixiya marka la dhaho shacabku fahanna kama haysanin already marka hore isla markaana dakhligu in shakhsi uu maxaan ku dhaha qaadanayo ma imarinayeen laakiin dadku maalin kasi dambaysa maxaan ku dhahay soo bislaanayaan dakhligu mid iyaga loogu adeegayo isla markaana maxaan ku dhahaa wax ka taraya horumarkooda caafimaadkoodii waxbarashadoodii biyahoodii loogu qodayo fagarayaal kadib iyo maxaan ku dhahaa inaan ka dhaadhicino in dakhligan uu yahay waxa uu adeegaya ee kharash ahaan ayaga loogu adeegayo inuu yahay bay aamineen marka waxay maxaan ku dhahaa taa sababtay in ganacsatada ay maxaan ku dhahaa tiin nambar wada qaataan shacabka maxaan ku dhahaa isagana xoolo dhaqatada ah ama beeraleydana ay iskood maxaan ku dhahaa iyagu u noqdaan kuwo canshuurta keena goobtii ama wakaalad dakhliga ku soo xareeyay isla markaana maad naga qaadaan dhaha oo maxaan ku dhahaa iyagu codsada marka heer biseel fiican bay iyaguna
maxaan ku dhahay ay faham fiican bay ka haystaan isla markaa wakaaladuna si fiican bay macaamiisha usoo dhaweysaa oo maxaan ku dhahay ay u qaabishaa marka guud ahaan heer fiican bay maraysaa maanta wada shaqaynta shacabka iyo isku xidhnaanshaha wakaaladda iyo adeeg bixinteedu mid aada u fiican bay maraysaa waan dhihi karraa waqti xaadirka taasna inay sii xoojinaan maxaan ku dhahay cabdicasiis maxamed guddoomiyaha degmada Ayshaca wuxuu leeyahay haddii ka go'naansho la muujiyo lana aamino in wax la qaban karo waa laga gaadhaa waxaanan aaminsanayn inaan wax qaban karno haddii aan ka go'naansho la imano runaanta waxaa tusaale u noqon karaa oon soo qaadan karaa marka hore maanan aaminsanayn in maxaan ku dhahaa mashaariic xooggan leh oo maxaan ku dhahaa tiro intaa dhan oo milyamaad aan ka soo saari karno maxaan ku dhahaa dakhligan isla markaana aan ka dhigi karno mashaariic iyo maxaan ku dhahaa adeeg bixintii howlfulin baan ka soo saari karo laakiin inay dadaal u baahan tahay oo maxaan ku dhahaa dadaal iyo ka go'naansho badan ay u baahan tahay baan aaminay dhammaan mashaariicdanadana waxaan ka soo saaranay sanadkan waxaa weeye waa dakhliga weeye adeegana waan soo saaranay maxaan ku dhahay howlfulintii dhaqaaqaanay isla markaana maxaan ku dhahay mashaariicdii loo baahnay aan qabsanay sanadkanna 90% way noo dhamaatay hadda wax yar oo 10% dhimantaana in bilaha soo socda aan dhammaynaan rajeynaa hadduu rabbi idmo waxaan usoo gudbinaynaa dhammaan bulshada degmada Ayshaca dakhliga la doonayo degmadeena ma aha dakhli meel kale ku baxaya waa dakhli ku baxaya mashaariicdeena iyo dawadeena iyo naft iskuulkeena manhajka iskuulka kuraasta iskuulka iyo daamka mashaariicda degmo weyn ee la qabtay daamka aan ku guuleysanay sanadkan ay kamid yihiin iyo kuwa lamid oo kalaba inaan ku gaadhno waxay dadku inuu aragti midaysan ka qaato dakhligu inuu yahay wax qabadkooda aragti buuxdana dadku ay sidaas ay ku bixiyaan kuwa fahansanna waxaan uga mahad celinaynaa ee sanadkan bixiyay waxaan uga mahad celinaynaa sida ay maanta ay uga qayb qaateen iyagoo ay u muuqato waxa lagu qabtay ay u muuqato daamkii oo hadda maanta beero lagu abuurayo ay arkaan kuwa aan fahansanayna waxaan leenahay inay ku daydaan kuwa kale ay bixiyay inay ku daydaan baan iyagana u soo jeedinaynaa taas baan ku gabagabeynaynaa anagoo ka duulaynaa qorshaha sanadkan iyo sanadadii horeba inuu dakhligu kor u kacayo oo isku mid una ahayn oo sanadba sanad ka dambeeyay halkan ay kaaga muuqata xafiiska 2003 ilaa maanta 2008 de faraq u dhaxeeya halkaas ka eegi kartaa marka maadaama aan hore u socono horumarkeenu xawli ku socdo waxaan ku gabagabeynayaa guud ahaan anigu fariinta ugu dambaysa waxaa weeye dhammaan shacabka ku nool maxaan ku dhahaa degmada waxaan usoo jeedin lahaa fariin ahaan in ay ka qayb qaataan ama bixiyaan canshuurtu waa horumarka waa furaha horumarka waa maxaan ku dhahaa furaha nabadgelyada waa furaha maamulka suuban in shacabku maxaan ku dhahaa inta aad canshuur bixisaan baa haddana dalkaadu ama degmadaadu ama deegaankaadu horumari karaa marka canshuur bixintu waxay maxaan ku dhahay fura u tahay horumarka dalkeenna ama degmadeenna ama deegaankeenna marka guud ahaan in maxaan ku dhahaa aan canshuur bixinta ku dadaalo isla markaana aan xoojino ilaha dakhliga kana ilaalino musuq ayaan soo jeedin lahaa maxaan ku dhahaa taa haddaan sameyno isbeddelka maxaan ku dhahay degdega ee dalkeenu iyo deegaankeenu ku socdo run ahaantii maxaan ku dhahaa qorshayaashaan dhigan ku guulaysanayna waan dhihi lahaa si kooban maadaama nahay waaxdii wacyigelinta ee daraasaadka ee wakaaladda dakhliga degmada Ayshaca waxaa fariin u gudbinayaa in bulshadu ay dakhliga bixiyaan maadaama uu yahay jiritaankeeni ama wixii wax inoo qabanayeen horumar ku gaadhayna dakhligu maadaama yahay bulshadu inay bixiyaan dakhliga oo dalkooda u huraan dakhliga ayaan fari lahaa ama maxaa la yidhahdaa yani ku codsan lahaa dhammaan bulshada ku nool degmada Ayshaca iyo guud ahaan deegaankeenaba waxaan fariin u sheegi lahaa gaar ahaan bulshada degmada Ayshaca
horta alxamdulilah marka hore sidii hore maaha intan dambe maadaama wacyigelino badan la sameeyey dadkii waxaan u maleynayaa sidii hore inay hadda ka fiican yihiin oo nidaamkii sharciga ee dakhliga si fiican ay u fahmayaan marka waxaan leeyahay bulshooy dakhligan la ururinay maaha ku meel kale naga tegaya waa ku bulshadeennii uun loo adeeg lagu bixinayo ها قيب تصالحان waxbarashado kale caafimaadkii biyihii adeegyada kala duwan umba lagu fulinayaa wax meel kale naga tagay maaha marka maadaama naftaada ka qaad oo naftaada u qaadi weeyaan waxaan leeyahay dakhliga hala bixiyo waana fiicantiin qaabka u bixinayaan ku sii wada ayaan leeyahay ma santii طبعا qaabka aan u geeyno cashuurta wax weeji maadaama degmada uu ka jiro bigi standard oo 24 hours shaqeeya bulshadu wixii lacag ay anaga noo kanayso ama dakhli ahaan ay ku soo xiranayaan bangiga ay ku soo xirayaan ka bacdi anagu rasiidka ay bangiga ay nooga keenan ayaan ka qabilnaa ka bacdi ayaan jarnaa waraqada foojar buugan waa buuga aan laga qabto arfiga qaybta dadka lacagaha bangiga ku soo shubay ka bacdi nidaamka ayaan ugu jarnaa marka xashadaan maxay kala yihiin tan cas iyo tan kale xashada saddex qaybood ka koobaya buugu mid cadaana iyo mid casaana iyo mid nooc kala marka qaybta cadaanka waxaan siinaa qofkii aan qaybta cadaanka waxaan u geynaa qofkii shakhsiyaadkii dakhliga xiriiba rasiid ahaan u siinaa labada kalena waa maaliyadda cidda yadlaha aan ka qabilno ayaan siinaa waraqada cadaanka taas iyo takalena maaliyadda tusaale ahaan haddii aan u tukano qof careysan ama kasoo horjeeda dakhliga inuu bixiyo laba dagaanana waan u dejinaa waxaan ka dhaadhicinaa inuu bixiyo dakhliga maadaama uu yahay horumarka deegaanka uu yahay beri mishaarkii macalinkiisa ilmihiisa u dhigayay ama dawadiisii biyihii horumarkii horiya waan ka dhaadhicinaa ka bacdi markaan ka dhaadhicino in faahsiino ayaan ka qaadnaa si degan jeegan waxa weeye lacagaha nooga soo xiro sida shirkadaha shiinaha oo kale marka waxay noo keenaan jeeg ka bacdi ayaan rangu rasiidka ku jarnaa lacagahoogana bangiga ayaan ku shubnaa